Cabdullaahi Ciise Maxamuud waxa uu ku dhashay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxa waxbarashadiisa aasaasiga ah uu ku qaatay magaalada Muqdisho sida dugsi Qur'aanka, iskuulka hoose dhexe ilaa sare. 1938 halgama Cabdullaahi Ciise waxa uu dhammaystay dugsigii sare ee Talyaaniga asagoo 16 sano jir ah, isla markaana waxa uu noqday maamulo xafiis. Dhammaadkii 1943 Cabdullaahi Ciise waxa uu ka mid noqday golihii dhexe ururka SYC. 1944 Cabdullaahi Ciise waxa uu magaalada Beledweyne ka furay laantii ugu horeysay ururka SYL. halgama Cabdullaahi Ciise dhammaadkii 1947 sanad guuradii afraad waxa loo doortay xogayaha guud ee ururka si loo dardargeliyo halganka. waxa uu keenay qorshe siyaasadeed iyadoo magacii hore ururka oo ahaa SYC loo bedelay SYL Somali Youth League, waxaana uu soo saaray barnaamijkiisii siyaasadeed oo ka koobnaa 5 qodob. 5taas qodob oo kala ahaa in la raadiyo gobonnimada iyo xorriyadda shanta Soomaaliyeed, in la dagaalo dhaqanka ku dhisan kala qaybinta iyo qabyaaladda, in laga hortago ciddii ka hor timaada midnimada Soomaaliyeed, in waxbarashada dalka la baahiyo lana dhiso aqoonta iyo waxqabadka dhalinyarada, in la qoro farta Soomaaliga. 1947 bishii November halgama Cabdullaahi Ciise Maxamuud waxa uu gudoomiyay fadhigii taariikhiga ahaa ee goluhu ku gaareen in muddo 10 sano ah xorriyad lagu gaarsiiyo koonfurta Soomaaliya iyadoo ay soo bandhigeen afartii quwad ee xilligaas dunida ka jirtay. sanadkii 1956 ilaa 1960 Cabdullaahi Ciise waxa uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee Soomaaliya. 1959 waxa uu markale ku guuleystay xilka ra'iisul wasaare. 12 bishii Abriil 1960 waxa uu saxiixay halgama Cabdullaahi Ciise Maxamuud wareegtadii lagu dhisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxa uuna darajada sarreeyo guuto u dalacsiyay una magacaabay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Daawud Cabdulle Xirsi. Cabdullaahi Ciise Maxamuud xorriyaddii kadib dalka waxa uu ka soo qabtay xilal wasaaradeed sida wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. sidoo kale waxa uu noqday danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Sweden iyo guud ahaan wadamada la isku yiraahdo Scandinavian-ka. Allah u naxariistay Cabdullaahi Ciise Maxamuud waxa uu ku geeriyooday magaalada Rome ee dalka Talyaaniga, isla markaasna loo soo qaaday dalkiisa hooyo, waxaana loo aasay si heer qaran ah, waxaana qabrigiisa si wada jir ah u baxdhigay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulle Cismaan iyo Jaale Maxamed Siyaad Barre oo xilligaas ahay madaxweynaha Soomaaliya. waxaa muddo 3 maalin hoos loo dhigay calanka Soomaaliya, waxaana dalka dhan ka dhacay baroor diiq heer qaran ah.